السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي إخواني أخواتي في الله. عاوة وهبين أحدا أي سوق ليسويان وهبين أحدا بشرة جبنا أي كوتا يكون أفر بغل أفرتنيشا. عاوة محا إذن كوكو تلقلي عاوة حان إذن كوكو تلقلي بارك الله فيكم. دعاء ذو قيمة بدنا دعاء لا أخري سنة يا مركا قريقا لقصي بحاي مركا قريقا لقلايو تي وحان صودا مايني دعاء لا أخري سنة يا مركا قريقا لقصي بحاي لكن هذا روحان آخر سنة إن شاء الله وأن برندونا دعاء مركا قريقا لقلايا لا أخريستو. دعاء ودعاء قيمة بدن sababtaan u soo geliyayna waxay tahay inaad ka faa'iidaysatid walaalada iyo family-ga iyo cid kastoo khayrka alle jeceshahay markaa uga faa'iiday barakallahu fiik. ducadan waxay tahay waa duco markaa ruwaad aad u tiro badan ay warinayaan, laakiin maxaa la akhrisanaya marka guriga laga sii baxayo? guriga marka laga sii baxayo waxaa la akhrisanaya barakallahu fiikum intaan akhriskeeda aanan gelin bal aan dhageysano xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam. ducadan ee aan idiin soo gelin doono qiimaheeda. jaabir ibn cabdillaahi radiyallahu canhu wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu yidhi qofka marka uu gurigiisa galaya ku gala dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala, marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u diidayaa markaa dadka shayaadiinta inay gurigiisa galaan, reerkiisa iyo markaa cunadiisa intaba markaa ay la wadaagaan. lidaa axbaabi haddii aad jeceshahay in markaa reerkaaga cuntadooda ilaahay baraka kuu geliyo, gelidaada reerka aad u gashayna reerkaaga gurigooda uu baraka geliyo, ducadan akhriso. nabiga sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu yidhi saxaabi kale ayuu ku oranayaa gurigaaga haddii aad galayso ducayso salaan, waayo salaantaasina adiga dushaada iyo reerkaaga dushooda intaba ilaahay baraka ayuu gelinaya. ducadii aan u soo noqdo markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qofka marka uu gurigiisa galaya akhrista ducadan bismillaahi walajana wa bismillaahi kharajana wa calaa rabbina tawakkalna. shayaadiintii ayaa waxay oranaysaa hadduu qofka markaa bismillaahi walajana wa bismillaahi kharajna wa calaa rabbina tawakkalna uu yidhaahdo markuu gurigiisa galayo, shaydaanka wuxuu oranayaa hoy ma lihidin maanta meelaad gashaan oo aad ku yeertaan oo seexataan ma lihidin. haddii markaa qofka markuu cuntada cunayana uu bismillaah dhaho, shaydaanka wuxuu oranayaa hoy maydan helin, cunana ma lihidin, markaa cunana maydan helin. lidaa axbaabi ikhwaani akhwaati fillaah, cunada haddaad jeceshay inuu reerka ilaahay u barakeeyo oo baraka ilaahay guriga uu dhigo, in ilaahay hoygiina iyo gurigiina uu dhibaatada iyo waxaas oo ilaahay ka saar uu noqdo guri xasiloon. ducaysta markaad guriga galaysaan reerkana salaama. nintaa ayuu nabiga kula dardaarmay sallallahu alayhi wasallam saxaabiga jaabir iyo asxaabtiisii intoodii ugu badnayd. marka ikhwaani anna waxaan idinkula dardaarmayaa nafteeda iyo naftiinaba inaan markaan gurigeena galayno ducada aan akhrisano baaraka allahu fiikum, reerkana aan salaanno, cunada markaan cunaynana gurigeena dhexdeeda dhexdiisa markaan joognana inaan markaa ilaahay magacawno oo aan dhahno bismillaah بارك الله فيكم. انت بركة ايانو كوهلينا اذا هلا سلام ريركا سلامتا سنة ونبد الدعاء ويان المركا حسيلوني ايو الهي مركا غورغا الهي كسو دبالي دونا الهي غرين دونا غورغا حسيلون ومركا دغن غورغا الهي كدغي دونا. والسلام عليكم باهي مقال كلا وداغا ولا ندينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.